islaanta nabiga aflagaadaysay baan dad arkayay leh aan ka fiirsanay hadalkooda waa qof waalan leh ma waalle way miyir qabtaa idinku waxaad aragteen qof waalan oo qaanuunka waddanka kala garanayo iska ilaalinaya inuu ku qaldamo xisaabta lacagta u soo dhacda xidhanayo oon shilin ka qaldamin gaadhigiisa watoo waddada laydadka ka istaaga gurigiisana u galbada adduunyadana kala goosha oon weytingii iyo diyaaradduu raacaya ka qaldamin marka nabiga la caayayana waa la waalan yaho garasho ma laha waxaas qof miyir qaba looma akhriyo qof wax garanayana looma sheego inta kale caqligayga waan qabaa marka nabiga caayana waan waallahay waxaas ma shaqayso waxaas yaan la idiin sheegin beenta ah qofkani wuu miyir qabaa ma waalla wuxuu sameeyeyna kas iyo ku talagal buu u sameeyey innagoon dhalan qarniganna aan jirin baxuunka sharciga waxaa qofka sameeyana uu yiilay qur-aanka ku soo degay xukunku xukun hadda la dhalinaya ma aha masale la ijtihaadayana ma aha masale ijtihaad hadda ahna ma aha waa masale kitaabka iyo sunnaduna sheegeen xukunkeedana xilligii nabiga fulay qofka gadaal ka yimid ee sameeyana isagaa khadkii xirnaa kocsaa ka sugu dhacay isagaa galay cidi kuma ridin waajibka dadka muslimiinta ahi guud ahaan gaar ahaan dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan iraahdo waxaan rumaysnayaa waxaa waajib ku ah dhammaan inay bologareeyaan waxa xumaanta inaad dhagaysato dhagahaagu maqlaan caayda nabiga war jacaylka raadinta iska daaya waxaasoo dhan waxay u baahan tahay waa dhexdaas waxaan arkaya qolyaha heesayo dowlad bay wax ka sheegeeno taageerayaashii dowladda dhisleyk waxa la yidhahda sameeyo waa laga saaray waa dee in yar dowlado taageersanaa intay farta u foorariyeen laga saaray inta nabiga la caayiyey ama malaayiin baa fartaa saacad daqiiqad foorarisan haba la saare oo horta meeluu ku yaalla ku jiraba hala waayo marka koowaad marka labaad qofka lacag doonka ah ee cayda nabiga dad badan ha soo galaan oo youtube lacag kaga hela leh ma intaad u buuxisaan baad lacagtiina kow ugu shubaysaan isaad wada bologaraysaan wey adigiiba haddaad sii gelayso oo hadafkii cayda laga lahaa nabigaba aad sii xaqiijinayso ood sii camirayso lacagna ugu sii shubaysahay ma caydii nabiga iyo fidinteedaad qayb ka qaadatay bise ka hortaggeedaad qayb ka tahay fal bay u baahan tahay ee af iyo eray uma baahna waxa ugu yaree fal aan samayn karnana soo lama nabigu ma dhihi calayhi salaatu wasalaam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fain lam yastatic fabilisaanihi fain lam yastatic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan halkan adcafu liimaanku iska xidh waaye wixii ka soo haray muxuu yahay lawad weeye sii sheergaree weeye anna ii soo dir waaye waxaa inta aad qaybiso caydii baad qayb ka tahay wax baciida ma aha xukunkii laftiisa inaad qaadato adoo samayn kara inaad qayb ka noqoto ka hortagga iyo tirtirkana inuu jiro lacag lagu helaad qayb ka noqoto kolla dembi ka badbaadi maysid ma gaaraysaa gaalnimadii iyo dadkii caayayna waa masalo baaristeeda u baahan masaladani ma fududa waa cirdigii iyo sharaftii nebi maxamed sal ly slam asalkeeduna shiica iyo munaafiqiin bay ka soo jeedaa caaisho nabiga in lagu duro 99 miyay ahaydna xamar bay ahayd mid Soomaaliya la istaagay dasuuqi oo isla mas'aladan lafteeda uu ku durayay marka munaafiqiintu way soo celceliyaan ilaahay ka cabsada qaybinta ka daaya ku garabsiinta ka daaya ka hortaggeedana qayb ka noqda ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqa allah inagu sugo ilaahayna subxaanahu wa tacaala iimaan iyo islaamnimana allah nagu nooleeyo iyadana allah inagu dilo